صاحب يالك استعمال كين العقد وحو wax ka sheega qaabkan u maamuli karno hadii waxaan haysano wax ka weyn helno hadaad $1 haysato maanta ama $1500 xagadan telefoonkaas oo kale dadka aqliga lacageed ee fiican lihi kan ma gataan $1500 waxay geliyaan oo la raadsadaan meel $1500 ku shaqeyn karta lacag kala soo saari karto $1500 meeshay ku maal geliyaan lacagta ka soo baxda ayay siistaan ama kan ama waxyaabo kale oo badan dhaqaale xumadeenu inta badan waa farsamo xumo iyo isticmaal lacageed oo fool xun qaabka lacagtu isticmaashid waxa la yiraahdaa waxa saameeya sidaan u soo kornay oo markaynu yareereyn marka lacag lagu siiyo waxaad markaaba xasuusanaysi oo maaragtay niyadaada ku soo degdegay nacnaasiiso isticmaal marka maskaxdaada waxa ku dhex abuurmay fakar ah lacag markaad heshid waxbaa lagu gataa waa la isticmaalaa dadka waa iskaaye farsamada lacag isticmaalka yaqaana lacagtooda waxa yaray shaqaystaanay maaragtay dadaalka ku helaan kuma bixiyaan waxyaabo ay ka helayaan farxad yar oo degdeg ah laakiin aan waarin laakiin waxay ku dadaalaan in waxa yaray helaan waxna isticmaalaan waxay uga baahan yihiin waxna meel lacagtaasi ka shaqeyn karto wax soo saari karta gashaan marka kan isticmaalkiisu waxba kuma soo kordhinayo oo aan ahayn qanaaco yar oo degdeg ah iyo farxad yar oo aan waarin ayaa laga yaabaa inuu sababayo laakiin kan lacagtaada koobaad gelinay kan waxaad gelisaa lacagtaada koobaad intaad meel kuugu shaqeyso la raadiso lacagtay shaqeyso ka gada kan $1 oo kastood heshaay waxa la yiraahdaa waxa weeyaan shaqaale daacada hadii aad ka shaqeysiiso oo meel ku shaqeyn karo geliso $1 wuxuu ku gadi karaa waxa rabto marka sababta inta badan suuqulka lacageed iyo baahidu inoogu badan tahay waxa qayb kamid ah la oran karaa in farsamada lacag isticmaalkeenu ay xun tahay waxa dadka qof aan mishaar badan iba soo galin bishii haddana $2,000 ku gadanaya telefoon waxa dadka qof aan lacag badan ba laga yaabo inaan mishaar ahaan soo galin laakiin alaab qaali oo aanu goynba isku taxaya marka war farsama lagu socdaa meeshii uu soconaa ma hayna weligeed shaqaale ahaano oo maaragtay lacaguna inuu u shaqeyno oo waqtigaaga lacag ku beed meesha uu soconaa waxa weeyaan in maalmahan kamid intaad nooshahay ad waxaad leedahay milkiyadeeda aad leedahay aad heshid waxaasina ay noqoto lacagtaadii aad shaqaysatay oo lacag ku shaqeynaysa waxa la yiraahdaa waxa lagu qiyaasaa qofka waddantinimadiisa inta aad noolaan karto adigoo shaqeyn معناه waxa weeyaan dadka qaar maanta iyagoo gurigooda joogo family-gooda waqti la qaadanaya ama nasanaya ayaa lacagtoodii ay shaqaysteen oo si fiican u maareeyeen meel wax soo saaraysa galiyeen ama ganacsi ku maalgashadeen baa lacagtii baa shaqaynaysa oo ku shaqaynaysa marka intaad nooshahay kamid waxaad rabtaa waxaad leedahay oo mulkidiisa aad u leedahay inaad yeelataa rabtaa taasi kuma timaado haddaad $1 maamuli kari weydo $100 maamuli kari maysa haddaad $100 maamuli kari weydo $100 maamuli kari maysa haddaad $100 maamuli kari weydana $100 maamuli kari maysa haddaad $100 maamuli kari weydana $1 milyan xabad ka higsanaysa marka farsamada iyo edaabta isticmaalka lacagta waxa ay muhiim tahay inaan barano marka aan inta yareen hayno barano si loo maamulo marka waddantinimadu marar badan waxay ka timaadaa dhaqan lacageed oo asluubaysa dad $1 maanta hayso kala jajabso qayb isticmaal qayb safe garayso qaybna meel yarood isleedahay oo waa lagu shaqeeyo marka lagu shaqeeyo waxa ka soo bixi isaga la isbaariyo isbar dhaqanka wax dhigashada iyo wax maalgashada $100 haddaad haysato $90 inaad isticmaali karto naftaada $10 ama meel dhigo ama meel ay shaqeynaysa lacagtaas gasho waxa ugu fudud waxa weeyaan ganacsi qof aad aaminsan tahay uu leeyahay oo fikrado intaasan haystaay iyo u shaqeeyo ka farsamo lacagtu waa farsamo badnaanshaheeduna waa farsamo farsamadaas yaa la tusay salaam calaykum